wax badan baan anigoo yar safray ama dooni ku safray ama reer baadiye ku safray maadaama aan ka imi reer baadiye kalluunkana cunaa geelu doona yaryaryaho badda isu dhigo waxaan u malaynayaa waa la yaabantihiin badidiin waayo soomaalida geeloodu waa dhulka hawdka la yidhaaho iyo dhulka soolka la yidhaaho isku mid ah badi waxaan garaadsaday geeljiraha iyaga adeeraday oo intay dabaashaan kalluunka soo qabsada oo hogeeya oo cuna oo geela maale oo cabba caanaha oo annagana la siiya annagoo carruura annaa waxba ku noqon markaan burco iskuulkii ugu horreeyo Somaliland former British Somaliland aan galayna waxaan dhageystay sheekooyin badan oo la leeyahay gabdhaha jooga burcona waa hawd la leeyahay kalluun haddaa cuntid oo caana dhadhamisid waa dhimanaysa marka waxaan isdhahay haddaad tidhaahitaasi ma jirto meel saas laga yeelan ka imin cidi ku rumaysanayso markhaatina ma haysatid على أي حال أنا جمالتي يقول رسي أنت عن قراري شيء يقول الرسي قميسي إن أركض ننعد أنا جو غير بادية أو المية وأنا أقول لك جد هاي وحنا صاق علي كونفوي قال وقته وعرونا وأهل رمية هاي سطح مية هاي مدبي هاي ما قرن كرو أيدي ومنطقة آد ولي مقعدي يالو آدم مقعدارين وإسلامته الأورنجر المريم آدم محمد عروتي أو هنكمل هاي يو حريه بيسكو دريرسي يدو دعي سنيسة وإلهي كبريسة شركة قال كي إشيسة إن أنا عقولته يحاول حاجته وأنا الدريرسي نمنكي يقضياشي بيلها بلا وحي أورانيين دهان أناجي عقولتها بيتري وحراها سيهر شوكسده وأنا قلت جورجي بيتكتي ماشي استاجين وقاريدو دواوين تاجناين أيه وحي كوشوكتي خوب بالشيء بيو يمر يدا دعيتني أنا قالوا وانوتي بيو واحد عدو آخرين ما قرنا يه واحد 10 ليراهو ملامير وكجربة كل نوع عبسيس حوالينا 10 كيلو بحرية قبل بشر مركز حراري يقول لنا لو سعودي مركز أنا وحنو هيستي كنتي وحنو قاعدة وان ما هذا discrimination يا جماعة لكن وحنو قاعدة ما أنكر كرين عدان يقوميسي وحنو قاعدة مدركة ضد إسكات هذا وتاريخ إن عبد الله حسن يسلس عمري oo iskumaystay ma garanay waxaan u qaatay in midabkaas laga baqo dadkaana maqaarka uu ka lumay baan u qaatay oo waxa looga baqayo oo looga duceysanaya faras ku ridee saasaan u qaatay waa baadiyaha hadda magaalooyin baa laga dhisay meeshii runtii ma garanayo لكن وأنت أود حيسة عرقاوة يلاصقرة أنت أود حيسة مالك المكان هدي an introduction كيجا قميص وإيه أحاطها وحن إيمي أنا ويا أبهي بسي ما نقضي وهربي بالورنجر وهربي وحد هو ما كلمت عرب هرب بكتي المقرن وتجي وزون قواي
aabahay wuxuu soo geli jiray cadan baa aniga hooyadayna la geeyey si aabahay noogu yimaado noo ah cadan haddii na la geeyey malcaamad baa laygu diray malcaamadii maalintii dambe Queen Elizabeth II oo gabadh yar oo qurux badan ayaa cadan timi markii ugu horeysay waxa yagii caruur ahaa oo malcaamadaha iyo iskuulada ku jiray baa nala soo safo caruur baa nala kala baxay safka la taago cadan oo lagu soo dhaweeyo Queen Elizabeth caruurtii baa layga mid dhigay marka waxaan sidii hadaa hooyada u sheegtid malcaamadday kaa saaraysa ilaa ayeeday baan xusuusan uma sheegin hooyaday dharkii aan gashanayay oo quruxda badnaa halkaan soo gashaday maalintii malcaamadaan ku jirtay halkaasaan gashaday haddii aan tegay nala safay waxna loo safay iyo kuwiinada bagarayn markii aan arkay dadkii cadcadda tii baan soo xusuustay waa soo cararay waxaan ku jiray dad caruur ubax loo dhiibay oo labisan oo wax la yidhaaho sameynaa wixii boliis carbeed oo meesha joogayna waa celiyeen waa baxsan waa lay qabtay waa lay sasaray anoo ooyaya baan ka qayb galay taasu waxa weeye introductionkii ugu horreeyey oo ma laha cadan waxaan ku arkay SYL baa ka furay anigu SYL waxay tahay markaa ma garanayn macnaheedu laakiin waxaan xusuusnahay hooyaday iyo habaryarahay iyo eedooyinkay qaraabadayadoo dhan oo taga maalinta khamiista SYL soo dhagaysta annagana na kaxeeya oo aanu qasiidooyin carabiya oo aanu qaybno iyo gabayo iyo buraanburo xorriyad dirir ah aanu aada uga soo dhagaysano oo haweenkaa ugu badnaa intay lacagta bixinaysa waan xusuusan anu markaa xisbi kale cadan kuma arag laakiin SYL baa xoogan SYL guriga ay ku jirto aada u garan maayo laakiin familygayga reerkayga reer abtigay baa hayay reer abtigay dadka ah ayaa guriga siiyey oo markaa cadan guriga ku lahaa oo siiyey SYL donation u siiyey gurigaaga magacii hadda ma xusuusto laakiin abtiyaday iyo walaaladooda maadeeradooda waxaas bay ahay xorriyaddu inay wax badan u leedahay markaa waan gartay xorriyadda haddaan cadanka nimi oo markaa aan soo noqday ceergaabo malcaamad aan ka galay waxaa alla qadaray anoo xoogaa carabiya soo bartay in imtixaanna laga qaado burco ceergaabo iyadoo hal iskuul oo gabdhuhu leeyihiin hal gabar ceergaabo oo dhan la siinayo sanadka halkii gabar baan noqday aniga waayo xoogaa carabi aan la imi halkii iskuulkaas district commissionerkii ceerigaabo oo ingiriiska ahaa naagtiisii baa iskuulkaa siisay oo malcaamadaa noo fankaraysay abtigay allahu naxariista xaaji ayaan oo la odhan jiray xaaji ayaan axmed oo la odhan jiray tacliinta aabihii tacliinta ee sanaag baa lagu magacaabi jiray boardka sanaagna wuxuu ka ahaa chairman buu ka ahaa educationka sanadkaas khayrkaas ayaan ka helay caddaankii anabcaa ceerigaabo waxaan garanayaa haddana reerkaygu SYL bay ahaayeen xisbiyada kale ma xusuusto ma garanayo laakiin ceerigaabo far soomaalida cismaaniyada la odhan jiray oo laga dhigi jiray berigii dambaan u maqlay cismaaniya soomaali far soomaali baa la odhan jiray waxaa laga dhigi jiray xisbiga SYL gabdhihii iga waaweynaayo o dhan arday bay ahayn way dhiganayeen fartaa soomaaliga ah waa isu qori jireen waxaan ogahay in la ii dhiibi jiray waraaqo wiilal iyo gabdho isugu qori jireen farta baan xusuusnahay
وما دام أن قبلي راح أقول ليش قال الأورنجرين وجيه بلايو فرتاسو هلكا كهرجشاي Soomaalinimada ku hirgashay waqtiga hore dhimantay ma aqaan markaas dadkii lacagta u ururinayay ceerigaabo SYL ku dhisnayd haween baa u badnaa waxaan imi Hargeysa Burco boarding school baa ku jiray fasax Hargeysa intee jiray nasiib wanaag abtiyadayda dukaamo iyo business meelahaas oo dhan ku lahaa cadan Hargeysa ceerigaabo meel walba fasax meesha aan rabnaan tagi jiray Hargeysa tagi jiray markii dambe gaarigeeda iyo dariiqeeda adag ma ceerigaabo Hargeysa SYL iyo NUF iyo USB iyo SNM afartaas oo maahay SNL afartaas xisbi intaba waxa u ururiya lacagta u ururiya oo ay ku dhisnaayeen waxay ahaayeen lafdhabartooda haween waxa dhageysta SYL maadaama reerkaygu ahaa khamiistaan halkaan tagi jiray SYL laakiin qolooyinka kalena maalmo kale tagi jiray waxa dhageystaana waxay u badnaayeen haween iyadoo xaalku sidaa yahay haddana xisbiga gudihiisa gabdhuhu tacliin ma lahayn habeen baa la samayn jiray si haweenku u yimaadaan haweenku markaa ma ay jeclayn inay soo ururaan maalin socdaan ma ay jeclayn haddaan nimaadno sawdka xaawataako iyo dadkii iyada supporterskeeda ahaa oo gabdhaha u badnaa الله ونحرسته حاو ينتي لمده هيدبا حرية ماشي إنه كنا ونقبله هدي ما أنت إنه هوين كمان أنت محيه وحن أورانك راه بقول كي هل ويكير تحي هوينك كقبل كود وبربرك وحي كان وكيري وقرنا